was a 2016 Olympic silver medalist, and now as a professional, he is undefeated with 11 wins. 10 of his 11 wins come by way of knockout. Ladies and gentlemen, please welcome the undefeated former Commonwealth, WBA Continental, and WBA Gold heavyweight champion, Joe the Juggernaut. His official weight, 17 stone, 6 pounds. Hailing from Greenwich, London, England, he is undefeated with 15 wins. 14 of his 15 wins come by way of knockout. Ladies and gentlemen, here is the current WBO International, WBC Silver, British, and Commonwealth Heavyweight Champion, Triple D, Daniel Dynamite Dubois. asxaabay saarkayseen waa 35 buu jiraa ninkan Joyce Balera ninkan yarina waa ilmo yaro ina yaro dhalinyara wuxuu jiraa 23 baad buuxiyay wuxuu yaaray 15 ciyaarood 15 marka tan loo 14 baan ka ooda wareega hore iyo wareega koobaad ku diray aad baa loo bombooninayaa ninkan laakiin experience weeye waanu ka yara gacan dheer yahay oo experience Joyce 35 jir weeye Olympic Brown buu haystaa ninkan yar waxa weeye ninka labaad WBC ga wuxuu haystaa WBO ga ayuu haystaa ninka labaad uu yahay silver buu haystaa kan kalena British ka imika waxa la isku haystaa British ka iyo Commonwealth oo ah WBO ga marka waxa ninka labada ninkan soo badiya wuxuu dhacayaa Alexander Usyk ninka Ruushka ahaa maalinta habeenkii dhaweyd Dalin wayd ka badiyay marka abla ciyaarta ninkan yar waxa lagu dilayaa khabiirnimo 35 sano ayaa bahasha ciyaaraha lagu soo dhex jiray laakiin yarku waa yariyay wali ciyaar sano kale u kulul nin khabiir caynkan oo kala ahna wali lama ciyaarin laakiin hadda waa fiican yahay bal waan eegi doonaa halkan wax ka dhaca ila socda sidoo kale waan yar dhaafiyay wareegyadii hore feerar far badan baa ku dhacay yarkii oo adigu dhaawacan yahay yarku madaxiisa waa lagu daraaceen oo markii ugu horeysay attack si aan feerkiisu aad u miisaan badan yahay saan u helin waa lagu soo soconayo dag waa lagu soconayo oo marka weerar badan baa lagu qaaday laakiin wali ciyaarta waxa haysta ka yar haddana weerar aad oo fara badan oo si aan jaan soo helin waa la weerarayaa ninkanina waa waxa weeyaan nin aad u khatar badan Joyce marka bal waxaan gelinaa wareegyada u dambeeya yarta soo daawan doontaan yarkan waxa la islahaa mustaqbalka waa ninkii Tyson Fury iyo George waa qaban la laakiin hadda uu dhaawaceen indhaha ilbaab kood walba tuutaagaba eeg uu ku wadaa mar qura joojin maayo gacantii feerkiisa weyn soo wadaa baa looga yar baxaya dhag marka waa berbersan yarku waa berbersan yahay miskiinka kaas ciyaarta wali waa lagu imanka ciyaar wanaag waxay soo qorayaan Daniel Dugba laakiin aad buu dhaawacay yarku aad buu dhaawacay han mana leenaano indhuhu waxa kama arkayo aan ku dhaweyn doonaa feerarkuna aad bay ugu dhacayaan isagu mar buu soo boodaya markaana oo isqabsanaya laakiin feerarka aad bay ugu dhacayaan yarka ka yara boodaya markuu soo socdo yarku waxa ma arkayo daan ku dhaweey soo calool yaxas madax tanad ninka kala helin barada meeqa jeer aan ku tababaray barada madaxa una eego calooshu waxa ma tartan waa mararka qaar kood Audi funda kolan tariya fantero leto me machin baan ku soo galo aka soo ordam saare anaga jo chimu besko de galay afrikaanku moogtay ninkan waxa ku jira cadaan baa ku jira moogtay waa iska dhalban maranayaa Joyce waxaan malay cadaan baa ku yara jiro waa maskaxba ku ciyaaraya dhag gacan aan fadhiisanayn anaga baxbuurinayo ka
qalbadda وني سوى لما يقول هذا مركا isagana markaa uu gacantu isaga dhigay gacantiisa ay halkaas ku sii raacday feerkaas kuma dhicin ninka ko la dhaayo oo ku dhuftaadana adar ku dhuftay aho brisk aho roodida aho linta linta xagga linta uga dhib waabi xagga uga dhib awdi uu dhibaatana wallahi fuqa baarix noqday waxaan maleeyaa ilkuhu xabadi kuma jirta hadii la isiraho dul luqluqda waa soo daadanayaan waraa ku haygo luqluqan nin baa bari habeen luqluqday ma waqti ka soo raacay wixii saw si loola dhacay koona walba looga dhufanayay ilkaha ayay wixii iska saarsaareen sunbu luqluqda oo tafasidi roodidi wallahi waa survivor baa la ninku haduu soo caro ninka qabsado wadaalin survivor soo soco hooyada ka soo raysay soo soco okay qudho iyo ma tash wala waabinaya tash ee gacantiisa ninka yar cadaan ku yara jiro gacantiisa mar qura isma taagayso bab waa bab kana waa hal mar gig wala banaynay marka soo xoog u soo cararto walla go arkay marka soo naqaskiisa soo qaadata moogta waa ku daay geeyira feerarku waliba kameradan soo dhaweynayno midna casad duubaye wax yar weeye gacantii ku dhacsan ninka waa kaas gacantii ku dhacsan isaga bab feer yaro hoose oo aan aad loo soo xoogayn oo la arkayn inaad soo qiyaastay bab bab kawa survivor weeye wiilka yar waa ka daba timay caano carruurta haday caana subax hore caana cabta wax yar markii boodoodan bay gaajoodaan waqti raggan waxay soo cuneen dry gin buu soo cabay ibraahiya baas ku daayirka waa ku daay waa ku dhacaysa waa ku sii socdaa pressure aad u saaray moogtay ku dhacaysa yarkii waa ku dhacaysa gacanta iska haya ku socota ku dhacday markaana sida rasaastuu la dhacaya feer yar oo looba ogeyn wakaa yarka waa isdhiibay brother lean sauce koodadku inta leegaadeen u tiri ariga daayay qaada ka dhamaatay waa ka daayay suunkii waa laga qaaday federationkii baa la qaaday iyo british heavyweightkii la isku haystay labadiiba ninkaasaa qaaday horta khabiirnimo ku dilay yarkan haddii uu sugi lahaa 10 feer buu ku dhufan lahaa laakiin waxa markiiba har weerarun baa leeyahay gebigiisa waxa yar ku abaadun abaad feer yaro jaafa jiri qodhish taabasha dhig masalahan baa jirta koodul baa ku usmay ay ku tooga ka soo fikir marka hore ninka barasharka ku saara saado la dagaalami lahayd David Hayow waad u injashay ka yar waa meest fuufugu indaa ka soo admudayno ka soconay wallahi mid marka ay ka hor hada ninkan wuxuu weeyaan wuxuu rabaa lagu yiraaciino ka warka markaas ku dhufto feed duubano waka wallahi biya ka duulay ay nee brada isugu brada aan ku soo cuntay ashaa ku soo cabay isugu soo iska daayo arwaaye ku ixtiraamay naaska qalqalo hadii marka intuu sii dhacay oo haan la ragi qaar intuu jilibka dhiganayo u iman lahayn dhag saddex kale ku dhufan lahayn si sariirta loo geeyaba waa ku daayay sheekadaas halkaas ciyaar xisabadan baa dhacay Mark Tyson waa bareejay suunkii waa haystay wali tatalkii ninka labaad adduunka ugu fiican dog Daniel waa laga badiyay aad baan uga xumahay inkastoo aan yarkaas lahaa uu soo baxaya laakiin waxaan leenahay go back